sida aad ka warqabtaan dawladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto Zoom waxaa lagu dhisay qiimayn la sameeyay oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimayntaas la sameeyay oo aad loo soo daraaseeyay waqtina qaadatay lagana wada fariistay ayaa lagu saleeyay in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarmin aad loo yareeyo qiimayntaas ayada wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay waliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo korinayay ay aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagantahay taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato midda amni aan maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiiri gelinaya aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas'uuliyad baa na saaran mas'uuliyadna saaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo ninka mas'uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku u walwalo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo sinaanta la magacaabay sakunaf lama ogoli inuu iga sarayn karo anna garasho sogordahan sooya ruux ugama dhigo Soomaali baan ahay ninna madax salaaxiyo kama yeelo seetada sasabada ma qaayibo sirta waxaa la yiraahdaa saabaan biyaha celin Soomaali baan ahay inkastoo sabool ahay haddana waan sirriigtaa saxaabada ma horsado saaxiib limaan nahay cadowgayga lama simo Soomaali baan ahay waxaa soo gudbaya kuwii lahaa gaalmada shabeelka waxaa soo gudbaya kuwa u buuxa sida libaanka yeshiyool madaxda gawaadhida saara بسم الله يهود ما كينا ديك وريد أنا قفرنيو للي سيجي ما نبت قلو للي سوجينا ما بجرو لبت ولي مسيدي قردر لما ساعدو للحق لنا إلا مسمو صومالي بانا هاي نبدأ نسهشا علادا كسللا سوما جلسو قومها نينكا نوركا سوسيدا قعنديسا كمسوغو صومالي بانا هاي دبايشا الله سعودا هاي سلفولينا ومكعو وابي سنانا هاي مرنا سماودانا هاي سمير بانها قوبتا صومالي بانا هاي ninkaan taydu soli karin uma yeelo suu rabo sida dunida qaarkeed sandullaynta ma ogoli ninna kabaha uma sido Soomaali baan ahay ninka iga sadroonow siintaada magaca lihi ogow kaama sugaye hana odhansa sababadow dareen seexda ma lihiye Soomaali baan ahay
saan la kala jaraanahay sumadi ay ku wadataa rag baa beri isaayaday anoo xoolo soofsaday xilmidnimaalaa sida soomaali baan ahay oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaal u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaasoo kala bixiso waxaa dhici karta dadka kaloo mas'uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaaroo u muuqda inay ayagu raadsadaan hadhowna mas'uuliyadda annaga nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqda mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha naqda mid looga soo horjeedo bannaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo bannaanbaxoo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayadaa isxilqaanto maahay dawladdu uma dirin mana oggola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas'uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dawladdii waxaa jooga safaaradihii hubka u badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama oggolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimayn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimayn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadlo inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaagdoona wax kasta la iska afgarto baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisii u taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kaleoo mas-uuliyiina waxay ku wad jireen in lees afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socotaa cid albaabkaas waa furan yahay sida bare ministerku u baaqo u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana wada hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ma aha wax go'aankii dawladda wax looga bedelaa maaha go'aanka dawladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimayn aan wax lagu soo dhisin marka aad iyo aad u mahadsan tihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado وحمسدنا عداوها اللي قتلوا الجري هدانا حيبريسكا وحنحرنا حي دفعات تدويرها تبكى وحمسدنا عداوها اللي قتلوا كمالهين دواديل في كبدرن دولة بانتدي تركان كلنا حي وإلى دارون نبت صوت بالله وحانو دثارنا وحنا قدرنا لا اليوم لا اليوم كمالهين دبادل فلك ودرن دولة بالدري تركان كلنا حي ويا الدلالو نبت صوت بالله
وفقبو كل شيء باندا سموغلو المظلوم دالان أوشاك مضروبا حبيبو وفقبو كل شيء باندا سموغلو ولدي وجدنا أخص دابو تكنا رعبتي وكانت سنة شهور دولة الجلودة الكاطبيب دلدل يحوشي حوشي ولدي وجدنا أخص دابو تكنا رعبتي وكانت سنة شهور دولة الجلودة الكاطبيب دلدل يحوشي حوشي وحنا قدرنا لا اليوم بسعدة كمالهم توليف الكبدرا دول بانتقي ربعهم لنا حي وإلى انتدالوهم نبصر تفالا وحانو قدرنا وحنا قدرنا لا اليوم تبسعد كمالهم تبغيفنا كبدرا دول بانتقي ربعهم لنا حي وإلى انتدالوهم نبصر تفالا وحنو ذكرنا لا اليوم بسعد كمالهم قبليف كبدرا دولة بانتقي ربعهم لنا حي وإلى انتدالوهم نبصر تفالا وإلى انتدالوهم نبصر تفالا وإلى انتدالوهم